السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا أن أسلف في رنمان تحانكي حسابت لوضع كونيو كويلا تنكا إن شاء الله بارتكي سكوبات مرنا أن أسلف في رنو دولا يرادو سؤال كوبات وسؤال choose the correct answer بالدهاي marka waxana la siiyay intaan marka armana inaan soo saaro jawaab saxda marka jawaab sax ku soo baxday intaan baan la siiyay tan baa laba jeer la isku dhufanaya oo lagu daray tan oo laba jeer la isku dhuftay marka waa tan laba jeer marka la isku dhuftay tan soo baxsa a square ab iyo ab kale lagu daray ab kale lagu daray b square halkan waxa ka soo baxsa tan kale marka ayadana laba jeer la isku dhuftay waxa ka soo baxsa a square minus ab kale minus b square box baxs marka intii waa la isku geenaya 2ab oo kuwana labadana la isku daro 2ab oo laga iyo labadana la isku daro minus 2ab isla baxayaan meesha maxaa ka soo haraya a square plus b square okay marka jawaab saas b ku noqotay su'aasha labaad waxa the sum of angles a and b bayan loo diray marka waxaan qaanay goobada dhan 360 tahay marka a b waa maxay a b waa kala bar marka 180 ayaan saas 180 ku noqotay su'aashan kale waxaan la dhahay if the universal set uu ka kooban yahay intaan ay tahay soo saar complementary of a soo saar marka complementary of a waa maxay waxa weeye waa inta aan a ku jirin laakiin universal set ku jirta marka waa maxay hada tusaalahan kala labo ay ku jirtaa 8 ay ku jirtaa 12 way wadaagaan laakiin 10 6 iyo 4 ma wadaagaan marka halka waa saddexdan marka mushkilada jirta waxa weeye laba jeer bay qoreen marka labadan waa sax إن شاء الله مركا أيضا جوابت وحاوي أما وا لبدا سوي جوابت أيضا إن شاء الله سؤال شحكته وحنا لهذا هاي converting 3/4 by radian into the degree أيضا سانا أقول بدلسة by waxa ku dhufanaysa 180 ba loo qaybshay ku dhufanaysa 45 soo baxsa waxa isku qaybinaysa 4 iyo 180 isku qaybinaysa 45 soo baxsat halkaana bay isla baxayaan saddex ku dhufanaysa 130 ku xsaasa marka 130 ku soo baxay tan kale labada marka la kala jaro waxa sameynaysa tan kala qaadaysa tan maxay ka timaadday 63 waxa ka timaadday 9 lagu dhuftay 7 38 waxay ka timaadday 4 lagu dhuftay 7 marka tan radical ka saarsa saddex ay noqonaysa tan radical marka ka saartay 3 laba noqonaysa marka maxay noqonaysaa 2 radical 7 iyo 3 radical 7 minus 2 radical 7 labadana kala jarsa marka saddexdii labada kala jarsa hal bay noqonayaan marka waxa radical saas ku soo baxsa taasna su'aasha xigta simplify baa la dhahay iyadana waa simplify ayadana waa tan marka 24 ba isku qaybinaysa tan korba u wareejinaysa oo saddex x cubic baa ka jaraysaa x taas baa ka jaraysaa marka labadana kala jaraysaa 3 4 baa kala jaraysaa hal baa soo baxsa labadana isku qaybinaysaa marka 2x taas ku soo baxda ayadan su'aashan kale ayaduna iska cadahay waa d oo jeeda Toyota Probox ayaa ugu badan su'aashan kale ayaduna waa tan qaanuunka adoo isticmaalaya saas ku soo baxsa ayadana 72 qaanuunkaas isticmaalaysa NBR equal to n loo qaybshay n minus r ayadoo inta saas ku soo baxsa data loo saas ku soo baxsa kan kale waxa which of the following fraction is equivalent inta keeba 0.75 kala mid ah marka maxaa sameeynaa 100 baa ku dhufanaa 100 la u qaybinaa marka 100 ku dhufanaa 100 u qaybino waxa soo baxsa taas 100 ku dhufo 75 loo qaybshay 100 waxa sameynaysaa 25 u qaybi waa 3 25 u qaybi 4 ayaan saas soo baxay su'aashan kale fx waxaan dhahay iyadana fx waxa la mid tahay 3 plus x plus 3 loo qaybshay intaas halkii ay f3 intaas la mid tahay marka booska x tax ku bedelanayaa 3
sidaa darteed waxay noqonaysaa 3 lagu daro 3 loo qaybshay 2 lagu dhufto 3 6 loo qaybshay 6 hal saas ayadana hal ku soo baxay part 1 baa intaa ku dhamaaday insha Allah baartiga labaadna u gudbinaa haduu Ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.